Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta qaaliga ah. Maanta waxaan jeclaan lahaa inaad ila daawataan muuqaal yar oo aan ka duubay Lake Nokomis. Lagan waxa uu ku yaalaa magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota. Lagan waa lake yar oo lagu qiyaasay 2 mayl waaye, waana meel aad iyo aad u fiican haddaad raadinaysid meel aad ku lagu baxsato. Waan ognahay xilliga qaboobaha badanaa dadka guryaha ay ku jiraan, laakiin marka xilliyada kuleelaha la gaaro iyo samarka waa waqtiga ugu fiican oo la jimicsado. Ama haddii aad rabto inaad hawo oo heshid fresh ah, badanaa wadamadan qurbaha ah xagga caafimaadka aad ayaa loola tacaalaa. Dadka waxaa lagu booriyaa in ay xilliyaashan banaanka u baxaan oo hawo fiican ay helaan oo ay xakameeyaan jirkooda. Waqtiyada qabowga badanaa fursad uma helaan dadka in ay banaanka aadaan. Sidaas darteed dadka waxaa aad dhakhaatiirta iyo dadka caafimaadka ugula talinayaan inay banaanka u baxaan oo jimicsiga ay badiyaan oo dhidid badan ka imaado. Caafimaad ahaana aad u fiican yahay. Waxaan jeclaan lahaa badanaa dadka Minneapolis ku nool in ay ka faa'iidaystaan Lagan ama wartaan. Lagan waxyaabaa ku jeclahay waxaa waaye sida aad u jeedaan, marka aad ku soconaysid meesha aad ku soconaysid geeda ayaa mataqaanaa geedo badan ayaa ku yaalaan oo hataa ma dareemaysid haddii qorax kuleel ay jirto, maxaa yeelay geedihii ayaa qarinayo. Waxaana helaysaa hawo oo aad u wanaagsan. Sida u jeedaan waxaa kaloo haddaad rabtid inaad aad dawato kalluumaysi iyo waxyaabo kala rabtid inaad suubisid, waxaad fursad u haysataa inaad ku suubisid. Lagan waxay leedahay meel laga kalluumaysto waxaana iskugu imaado dad kala duwan, waana xirfad aad u wanaagsan sidaan ku sheegay videogaagii hore. Waxaa kaloo meeshaan arkeyn kartaa familkaaga iyo qoyskaaga dhammaantiin waad ku lagu baxsan kartaan. Sida u jeedaan hadda arkaysaa gabadhan way lagu baxsanaysaa. Qasab ma aha markii la dhaho jirdhiska in oo aad aadid gym-ka kali ah. Waxaa ugu caafimaad badan waa inaad maalin alla keena haddaad socotid oo 2 mayl aad socotid ama ilaa 3 mayl aadna maalin walba joogtaysid. Waxaad isku arkaysaa isbeddel weyn xagga caafimaadka iyo jirkaagaba. Badanaa dadka waxaa lagula taliyo oo caafimaadka ay kula taliyaan waxaa waaye dadka miisaankooda oo rabaan inay iska jaraan inay socodka joogteeyaan, maxaa yeelay waa wadada ugu wanaagsan oo lagu jaro miisaanka. Oo maxaa yeelay haddii aad socotid dhaawac badanaa ma helaysid marka loo barbar dhigo marka inaad aadid gym-ka. Gym-kan waa zaid u fiican yahay, laakiin waa inaad taqaanaa biraha aad isticmaalaysid, waa inaad haysatid qof tababaro ah ama trainer. Badanaa dadka gym-ka ay tagayaan si ay jirkooda u dhisaan, laakiin waxay kala kulmayaan dhaawacyo badan maxaa yeelay ma haystaan qof tababaro oo ku takhasuso. Wadankan wax walba takhasus ayuu u baahan yahay, indha adeegii wadanka ma jiro. Sidaas darteed haddaa waxaa garanaynin waxaa la dhahaa in qof kale aad weydiisid badanaa qarashaa lagu bixiyaa. Wax bilaash la dhaho wadankan ma jiro, wax walbo waa qarash. Haddaad rabtidna qof macquul gal ah oo ku tababaro inaad heshid waa inaad lacag dhiibtaa markay ugu yartahay $300 ilaa $400 waaye. Haddaad rabtid inaad heshid tababaro oo khibrad zaid haysto oona ku xeel dheer. Sidaas darteed haddaadan awoodin waxaa muhiim ah in aad si dabiiciga ah oo ugu wanaagsan aad miisaankaaga ku xakamayso. Waxaana imaan kartaa Lagan haddaa 5 maalin socotid. Lagan oo galab walba imaadid oo adiga kugu qaadato nus saac ilaa 1 saac, waxaa hubaal ah inaad isbeddel weyn dareemi doontid. Waxaan la kulmay wiil Soomaali ah oo ii sheegay bisha Ramadaanka iyo bishaan 2 bil gudahooda in uu riday 19 pound. 19 pound ciyaarna ma aha. 19 pound waa miisaan
aad iyo aad u weyn. Wuxuu ii sheegay keli ah wiilkaas in markuu shaqada kasoo baxo uu imaado leegaan imaado ama wartaan uuna markay ugu yartahay 2 jeer ilaa 3 jeer uu ku wareego. 2 jeer hadduu ku wareegana waa halkii wareegto waa 2 mile waaye, waxay noqonaysaa 4 mile ilaa 6 mile inuu socdo galab walbo. wuxuu kaloo ii sheegay inuu cunto caafimaad lehna uu cuno oo isku dheelitiran. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.